الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحمد لله إلهي بانكم هدينا صلاة إنك سوقي بلي جماعة runtii waan soo ziyaaranay uuna waxaan idhi bal sheekha iyo dadka musalliinta xaafadan degan intaana duufin soo salaama haddana ma aragtaan inaan sii dardaaranno oo isbaraarujinno oo isku nasteexayno oo diinteenna macaan bayna faraysaa salaada duhur ee jamaca aan la soo tukanana dee allah inaga aqbalo camalka inaad la timaado waa dadaal inaad ku dadaasho camalka aad la timida in laga aqbalana iyaduna waa dadaal labaad oo kale weeyaan oo dadkii wan wanaagsanaaye naga horeeyey inay camalka saalixa la yimaadaan waxay kaga dadaal badnaayeen camalka ay la yimaadeen haddana in laga aqbalo ilaa camalkii aada ku tacabtay oo aanan laga aqbalin iyada laftigeega waa khasaaro weyn weeyaan cabdullaahi bn cumar bnu khadaab radia allaahu canhuma ayaa zamankii dambe dadka muslimiintu aad ay u soo bateen dad badan oo cumar bnu khadaab aanan soo gaadhina ay wiilkiisii ibnu cumar ay soo gaadheen ayaa ammaantii bay markaa kala dul dhaceen ibnu cumar oo yidhaahdeen adigu nin caynkaasaa tahay aabbahaana nin caynkaasu ahaa anta kada wa abuuka kaana kada wa kada markaasuu ku yidhi waxaa ammaanaad aniga igala dul dhacaysaan waxaa kaga farxad badnaan lahaa buu yidhi 2 rakacadood oon tukaday oo layga aqbalay oon ogaadoo la ii sheego ayaa waxaasoo dhanba aan kaga farxi lahaa buu yidhi kaga farxad badan lahaa camalka inaad la timaadaa waa dadaal oo ilaahay baa qofka waafajiya laakiin camalka in laga aqbalaana dadaal kale u baahan tahay ibraahim alkhaliil calayhi salaam iyo ismaaciil markay beytka ilaahay ay dhisayeen waxay ilaahay weydiisanayeen qabuuliyad waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu rabbanaa taqabal mina inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin waxay ku dadaalayeen camalka in laga aqbalo asbaabta camalka lagu aqbalona waxaa ka mid ah waa alla ka cabsiga inuu qofku noqdo qof ilaahay ka baqaya oo taqwo leh oo ikhlaas leh ikhlaaskuna waxa weeyaan waa seeska dhan ee diinteena islaamku ay ku dhisan tahay oo camalka saalixeed la timiday haddaad sadaqo dhiibayso haddaad soomayso haddaad qur-aan akhrinayso haddaad diin baranayso haddaad diida dadka aada barayso haddaad imaam tahay haddaad ma'muum tahay haddaad mufasir tahay haddaad daaci tahay camalkaaga in laga aqbalaa waxa u shardiya bay culimmadu yidhaahdaan waa ikhlaas iyo cilmiga ikhlaasku baa la yidhi waa qabuulu lcamal camalka in laga aqbala ikhlaaska u shardiya cilmiguna waa sixatu lcamal camalkaagu inuu sax noqdaa waxa u shardiya inaad camalkanaad qabanaysa aqoon aad u yeelataa oo salaadii baa labadaa u baahan oo dikrigii baa labadaa u baahan oo ducadii baa labadaa u baahan oo soonkii baa labadaa u baahan oo xajkii baa labadaa u baahan markaad camalka saalixa aada qabanayso ilaahay dartii waa inaad u niyootaa waxaan ilaahay inaad ajar kaga helayso sixada camalkuna wuxuu camalku sax ku noqonayaa waa markaad culummada aad ku xidhan tahayd weydiinaysid kayfiyadda camalka hal camal oo saalixo ilaahay kaa aqbalay ayaa adduunka wax u dhigmaba la helaynba waa kii nabigeenu lahaa sal lla ly slam inama alacmaalu binniyaat camal walba waa niyadda waxuu ka unkamayo xadiidkaasi culummada musanifiinta kitaab kastay qoraan xadiiskaasay uga dhigaan bilow bidaayo uga dhigaan haddaanan camalkan ikhlaas aanan lagu qabanin ma soconayo xataa qusluljanaaba janaabada markaad ka meedhanaysid bay culimmadu ku leeyihiin arkaanteedu waa 2 anniya wa tacmiimu lbadani bilmaa inaad niyootaa inaad qusluljanaaba aad ka meedhanaysid haddaanad niyoonin kaa meydhma maysa bay ku leeyihiin iyo jirhkaaga inaad biyaha ku camimtaa oo meel walba aada gaadhsiisaa
marka ikhlaas allah ina siiyo mukhlisiin allah inaga dhigo الناس موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملون والعاملون مغرورون إلا المخلصون والمخلصون على وجل حتى يعلموا ما يختم بهم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه erayadii siibay ka mid ahayd dadka oo dhan way dhinsan yihiin ilaa culimada un baa ka nool buu yidhi dadka cilmiga sharciga yaqaana dadka un baa dadoo nool buu yidhi waxa kaloo dhan waa dad dhintay la mid yihiin buu yidhi culimaduna iyaga laftigooga cilmiga ayaa sakhraamiyey buu yidhi ilaa kuwa cilmiga ay barteen ku camal falaya mooyaane kuwa cilmiga ku camal fala ee diinta ku dhaqmana way degan yihiin buu iyaga laftigooga way degan yihiin oo camalka ayaa dagaya illa almukhlisuun kuwa mukhlisiinta ee camalka ilaahay u barax tirta mooyaane walmukhlisuuna calaa wajalin dadka mukhlisiintuna cabsi bay ilaahay ku caabudaan ilaa ay ogaanayaan khaatimadoodu waxay ku dambaynayso inta hore oo dhan waxay ku jiraan cabsi bay ku jiraan nin caalim ahaayo masaajidkiisa markaan ku tukado salaad kasta marka uu ka baxo ayuu ku ducaysan jiray allahuma inaa nas'aluka xusna alkhaatima washahaada cinda almowt wanacuudu bika min suu'i alkhaatima markaasaan nin sheekhaan weydiiyo nin sheekha ducadaas way ku badan tahe wuxuu yihi 65 sano ayuu duruusta masaajidda ka mariyaa maalinna ducada kama tega baa la yidhi isagoo kitaabkii bukhaariga habeenkii dhammeeyey oo ardaydiisiina kala ballamay tirmidiga inuu u bilaabi doono usbuuca dambe sunnadiina gurigiisa ku soo sunnaystay fajarka fadaja calaa shiqihi alayman markaasuu sidii sunnadu ahayd buu dhinaca midigta u yar jiifsaday way ka raacday naftii 65 sanana wuxuu ku ducaysanayay ilaahu khaatimada ii wanaaji ilaahay khaatimada hanoo hagaajiyo su'ul khaatima waa shayga keliya culummada rabbaaniyiintu ay ka biqi jireen dadka ilaahay ku xidhan marka ikhlaaska ayaan ku dadaalaynaa inaan camal kastoon qabanayno aan ikhlaas u qabano ikhlaasku cibaadada keliya ma galo nebigu sal alla alay wasalam ummaddiisa xagga diintana uu ka dhisay xagga dadnimadana uu ka dhisay xagga diinta siduu nebigu ummaddiisa uga dhisay camal kastay qabanayaan inay ilaahay dartii u qabtaan oo ilaahay radihiisa ay ku doonaan ana agna shurakaa'i can ashirk man camila camalan ashraka maci gayri taraktuhu wa shirkah xadiis alqudsi waa ka ilaahay lahaa anigoo camal la ii shariig yeelo cid kale layla wadaajiyo oo cid kale shariig aniga laygala dhiga baa ilaahay yidhi hani baan ka ahay oo waan ka kaaftoomahay baa ilaahay yidhi ninka camal soo qabtay ee camalka adduunka intuu jooga cid kale ila wadaajiyey isagiiyo shirkigiisa waan isku dhaafaa baa ilaahay yidhi marka ikhlaas wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin wamaa umiruu lama amrin dadka ilaa waxaa la amray inay cibaadada ilaahay jala wacalaa ay u badhaxtiraan xaggaas waa xaggii diintii xagga dadnimadana nebigu ummaddiisa uu ka dhiso waxau dadnimada nebigu ummadda uu ku dhisay waxa weeyaan walaalkaa haddaad wanaag aad u samaynaysid badiil inuu wanaaggaa aad u samaysay wanaag lamida inuu kuu sameeyo ha soo dhigan meesha ee waxaad soo dhigataa buu nebigu yidhi ninka wanaag inii sameeya buu nebigu yidhi waxaad ugu abaal celisaan ood abaalkiisa aad ku guddaan buu nebigu yidhi inaad u ducaysaan oo tidhahdaan jazaaka allahu khayr badiil ha sugin waxbaan u qabtay waa inuu wax lamida ii qabtaa diinta islaamku ma qabta taas waxaanaan siiyey abaal baan ku leehay abaalkayga waa inuu soo celiyaa may diinta islaamku waxay qabtaa marka horeed walaalka ixsaan aad u samaynaysidba waa inaad ugu samaysaa alla dartii ilaahay dartii waxa ugu samee haddaad janaasadiisa raacaysa ilaahay dartii u raac haddaad dayn aad amaahinaysa ilaahay dartii u amaahi haddaad wax siinaysa ilaahay dartii u sii haddaad xoogaaga ku taageeraysa ilaahay dartii ugu taageer haddaad cilmi baraysa ilaahay dartii u bar haddaad caawinaysa ilaahay dartii u caawi haddaad garab u noqonaysa ilaahay dartii garab ugu noqo haddaad talo umadeed qabanaysa wuxuu nebigu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey ilaahay dartii inay dadka ugu shaqeeyaan dowlad
dowla nabawiya la yidhaha buu nabigu madiinat almunawara uu ka dhisay dowla nabawiya sees wuxuu uga dhigay ikhlaas halkay adduunyada ay ku jirtaa maanta ay ka jirtaa ama ay dhici kartaa dowlad min madaxeegii ilaa mijaheegii kii qashinka dariiqa ka qaadayay uu leeyahay anigu ilaahay dartii baan ummadda ugu shaqaynayo cidna mushqaayad ka dooni maayo ma jirtaa dowlad caynkaas baarkaasaad leedihin horumar baa la gaadho gaaladaa horumartay xaggee horumar ka mareen laba maalmood hadday shaqaalahooga bishaarka dowladda ay ka jaraan shaqaaluhu waddanka dhanba saasay u rogayaan 10 maalmood hadday bishaarku ka dib dhaco way rogayaan waddanadooda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dowla islaamiya wuxuu dhisay min ka madaxa ilaa ka mijaha ee qashinka dariiqa ka qaadaya ka dhirta dariiqa ka baxday ka goynaya ka maaragtaane dawaynaya oo yidhaahdo ilaahay dartiiba waxaa kugu qabtay iska soco ilaahay baan ajar ka doonayaa dowla nabawiya kontomeeyo sanay dowladdaasi sidaa ku dhisnayd ilaa khilaafadii mucaawiye laga gaadhay baa la yidhi dowla nabawiya ilaa mucaawiye laga gaadho ama ninkii la odhan jiray marwan alximaar waxaan way ujeedaa mucaawiya ibn abi sufyaan laga gaadho halkaa dowla nabawiya isku ku joogsatay yidhahdaan culammadu dowla mulukiya markaa ka bilaabaysa mucaawiye laga bilaabo ilaa ninka la odhan jiray marwan alximaar dabeedna waxaa ku xigta dowla jabaruutiya oo iyaduna bilaami doonta khilaafadii dowlat lamawiya oo khilaafa dowla cabaasiya bilaami doonta dowla nabawiya nebigu waxau ku dhisay min amiirka mu'miniinta ee waddanka ugu sarreeya inuu aaminsan yahay shaqada uu ummadda u hayo inuu ilaahay dartii ugu shaqeeyo mooyaane reerkaaga iyo adigaa ku noolaanaya meesha ma soo dhiganba ka qashinka qaadaya buu nebigu yidhi imaadat ladaa can ariiqi sadaqa dariiqa aada maraysaan dhibaatada taallay imaadat ladaa dhibta taallay oo laga qaado waa sadaqa buu nebigu yihi yaa ayuha annaas madiinuu nebigu soo gaadhay sal ly slam dadkii buu nebigu la hadlay hadalkuu kula hadlay ma taqaanaa yaa ayuha annaas afshu salaam waatcimu الطacaam wasilu اlarxaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bsalaam cuudu اlmariid faku اlcaani atcimu اljaa'ica waa sharcigii dowladda islaamka madiine ay ku dhisnayd talaanta faafiya masaakiinta cuntaysiya hal qof oo faqiiroo sidaa le waa laga waayay magaalada madiina xadiiskaasaa lagu camal falaya halka maanta muslimiintu balaayin lacaga baanaanka ay ku haystaan qaar qaraabadoodana gaajo ugu dhimanayaan ama qaraabadiisu ay dawarsanayso magaalada madiina nin xagga dambe wax dhiganaya ma jirayn waxaa maanta soo gala way wada cunayeen sawiya waxaa laga waayay magaalada madiina ayadoo reer madiine xadiidka nebiga ay ku dhaqmayaan warkiina kii ka gaajoonaya cuntaysiiya ka niga xanuunsanna ziyaarta ka xidhanna buu nebigu yihi soo daaya waxay dhacday magaaladii madiine oo dhacday in qof miskiina laga waayo qof gaajoonaya in laga waayo waxbaa la wada cunayaa in qof maaragtaane hadduu qof ka xanuunsadana magaalada madiine 40,000 ee qoysee degan ay soo wada ziyaarato ninka magaalada madiine qariibku ee ku cusub markuu arko ninkan waxa khalqi soo buuqanaya waxa uu u malaynayay dadka magaalada madiine ku nool oo dhan inay qaraabadiisii wada yihiin qaraabanimo kuma soo ziyaaranayaane xadiidka nebi maxamed camalfalay ku camalfalayaan ayay magaalada madiine dadku ku soo buuqanayaan dadnimadoodii buu dhiso wuxuu ku dhisay ninka wanaag inii sameeya waxaad ugu abaalguddaan inaad ugu ducaysaan maxay jazaaka allah khayr jazaaka allah khayr waayo waxaad siinaysa adigu waa wax yar haddaad abaal celin lahayd ka soo qaad laakiin waxa ilaahay siinayaase ayaa ka weyn waxay ka dhigan tahay ilaahay baan kuu baryey haye waxa ilaahay uu ku siinayana kamaa yaliiqu bijalaalihi buu kugu siinayaa marka ikhlaaska allah ina siiyo ikhlaaska iyo iimaanku waa mataana bay culimmadu leeyihiin iimaanku markuu biro ikhlaasku wuu biraa iimaanku markuu naaqusmana ikhlaasku wuu naaqusmaa tow amaan allah ina siiyo ikhlaas haddaan yeelano nolosheena o dhan baa isbedeli ikhlaasku waa maxay waa waxa camalkaaga lagu aqbalayo camal haddii lagaa aqbalo noloshaada o dhan baa toosi nin caalimo rabbaaniya ayaa ardaydiisii ka midaba biyo yidhi isoo qaad biyo
biyihii buu usoo qaado biyihii baa ka soo daadaatay sidaa uga daadaatay ardayna maahayna nin iska weyn buu hayo ardayda waaweyna saasuu eego wuxuu ku yidhi ilaa imika salaadaadii may hagaagin buu ka yidhi adiga